عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. halka kan waxaan ugu bishaareynaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan caalamka ay ka joogaan magaalada Birmingham ee UK caasimadda labaad in laga helay masaajidkii ugu horeeyay oo Ilaahay dartiis loogu istaagay oo ummadda muslimiinta loo gaday baan halkan u soo gudbinaynaa muslimiinta walaalaha oo dhan meel kasta ay joogaan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala nusuusta ku soo arooday masaajidda ma soo koobi karno, laakiin waxaan soo qaadanayaa aayad aad u cajiib badan oo Ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. walaalaha ragga iyo walaalaha gabdhaha waxaan Ilaah uga baryaynaa oo ka qayb qaata inuu Ilaahay muxuu subhanahu wa ta'ala bayd jannada uga dhiso. masjid taqwa masaajidka la yiraahdo laga aasaasi doono magaalada tan Birmingham looguna talagalay dadka muslimiinta inay ka faa'iideystaan in masaajidka dadka muslimiinta awalan ay barakeeyaan oo Rabbi subhanahu wa ta'ala dartii ay uga qayb qaataan. nabiga calayhi salaatu wasalaamna aad buu ula hadlay saxaabada ridwaanullahi calayhim iyo dadka mu'miniinta. nabigu wuxuu yidhi: man banaa lillahi masjidan bana allahu lahu beytan fi ljanna. beydkaa beyd la mid ah ayuu Rabbi subxaanahu wa tacaala jannada ugu samaynaya. wuxuu ka mid yahay masaajida oo la dhisaa sadaqada jaariga ah. sidaas darteed waxaanu codsanaynaa ummadda muslimiinta ah meel kasta oo ay joogaan, intana maqlaysa iyo intana arkaysa, inay nagala soo qayb qaataan oo noo kacaan oo gacan furan oo deeqsinimo in ay ka geystaan dhisidda masaajidkaas. marka walaalayaal idinku dheerayn maayo, culimadii uga horeysay ayaa maxaan ku yiraahdaa masaajidda iyo khayraadkooda iyo ahdaaftoodaba sheegay. waxaad nagala soo xiriiri karaysaan xawaaladaha ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed: xawaalada Mustaqbal, Amal, Dahab Shiil, Qaran. akawno ayaa ka furan Ilaahay idankiis.